assalaamu calaykum kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebba raalli ka noqdo qiso ina tusinaysa inaadan marnaba isdhiibin sidoo kalena kolba inta ay leeg tahay ama gaadhsiisan tahay kartidaadu aad yeelanayso cadow ama dhaliilo lagu soo jeediyo ku soo dhowow qisadan sanadkii markuu ahaa 1929kii waxaa ka dhacay xagga arrimaha tacliinta sare ee magaalada Chicago dhacdo lala yaabay aqoon-yahanadii waddankoo dhan baa meel kasta iskaga yimid si ay u arkaan dhacdadaas wax yar ka hor taariikhda waxaa yimid magaalada Yale wiil yar oo la yidhaahdo Roberto waxauna ku bilaabay shaqada markii hore adeega hotel markii labaad waxa uu ka shaqayn jiray inuu soo guro xaabada wax lagu karsado markii saddexaad waxa uu noqday amaba u gadoomay gedisley markii uu joogay 8 sano magaalada ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha jaamacadda Chicago isagoo 30 jir ah markaas baa meel kaste la iskaga yimid isagoo lala yaaban yahay wiilkii yaraa ee 30 jirka ahaa madaxa looga dhigay jaamacadda Chicago taasoo ahayd dhacdo aan weligeed hore u dhicin aqoon-yahanadii Mareykanka saxaabada ay dhabanada saareen waxa wiilkii yaraa ku soo burqaday dhaliilo meel kasta looga soo furay dadka qaar ayaa waxay ku yidhaahdeen malaha wiilkan yari wax khibrad ah iyo wax tijaabooyin uu soo maray qaar waxay ku eedeeyeen inuu ka qabo aragti guraacan waxbarashada waxa sidoo kale qayb libaax leh ka qaatay dhaliisha wiilka yar loo soo jeediyay wargeysyada oo iyaguna sidoo kale ku qaaday dhaliilo wiilkii yaraa maalintii loo calaamadeeyay madaxa jaamacadda waxa uu yimid Roberto aabihiis inay saaxiib waxa uuna ku yidhi waxaan akhristay saaka wargeysyada waxaanan aad uga nahay ololihii lagu qaaday wiilkaaga ee lagu dhaliilayay wuxuu u jawaabay Roberto aabihiis waa run waa dhaliil qaraad laakiin ma ogtahay waxa lagu dhaliilay hadba intay qiimahaagu leeyihiin ogow qofna ma laado ee baqtiyay arrintan oo kale waxa dareemay wiil la oran jiray Slow oo markii dambe noqday boqorkii 8aad ee Ingiriiska markii uu dhiganayay kulliyadda ciidanka badda ee jaamacadda Dartmouth waxaanu markaa ahaa 14 jir maalin baa la arkay Slowgii yaraa oo hintiqdag haya haddii la weydiiyay sababta uu la ooyayo ma uusan sheegin markii dambe ayaa la ogaaday in ardayda qaarkood garaaceen markaas baa taliyihii kulliyadda u yeedhay ardaydii la eedeeyay waxaana ku yidhi sida runta ah Slow ima soo dacwoon laakiin waxaan jeclaaday inaan ogaado sababta idinku xambaartay inaad dishaan markii ay cabbaar ka warwareegeen ayay ku jawaabeen sidan waxaan nagu xambaaray inaan ku faanno hadhow markaan saraakiisha ciidanka badda ee boqorka noqono inaan dhahno boqorkaan dilnay oo weliba gacanteena ku garaacnay marka ogow haddii lagu soo jeediyo dhaliil ama garaacid inay tahay aqoonsi qadarkaaga iyo qiimahaaga la aqoonsaday waana qiraal lagu qiray inaad la timid ficil ku soo jiidaya indhaha dadka waxaa jira dad badan oo isku hawla inay ceebeeyaan dadka ka heersaneeya xagga aqoonta qiimaha bulshada iyo kartida waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga fadlan si aan ugu dhiiranno inaan xogo kale sheekooyin kale iyo macluumaad kale inaan ku soo gudbino taabo subscribe ama rukumo hadba soo taqaano mahadsanid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh